هاوي ورهاد ninka waa macalinka ku sheegay ina kan maadana sidee sano koor macalinkan keenay iskuulka iigu dambeysay saas u taagnaa ma qandalo sidee sano koor qof xanuunsanay ma bilba iigu ka dambeysay hay maanta maxaa leedahay ina kan gaado xageed kooga inankayga waxaan ku ogaa waxbarashada anaa ku darsaday oo lacag ka bixiya ma dhashay aduu anaa dhalayha xaguu maraya meel u maraya uu ii sheeg meeshuu marayo subax walba soo baxo guriga soo kala soo waaba ku qalashay wuxuu ku qalalay waaba waxbarashada ninkan waxyaabo kala qalajiyay waxbarasho cid ma qalajiso ninkan waxyaabo kala qalajiyay qofka waxbarashada qalajiyada foorka u yaalay balka dabad meesha noqdaan baa lagu cunaa makso waxbarashada laga soo aado waxbarashada saas u noqonay wiilkan aan waxbarasho keensan weligeena kala dabaymaan asaga aan waxbaranahay intaas 8 sano ka hor ilaa maanta ninkaas waxa uu bartay ninkii kale meesha jooga igu yar aniga meesha jooga koodhe maay ninka arki weeyay subaxda guriga hooyada waa subax walba ka soo baxay seewarku wiil waxaad samaysaa saacad baa iga baxday siba lacag taajida aniga qaado baa ugu daran reer siba ay dhaafsan tahay ninkii meesha la igu yar meesha anigaana wax bara siba u soo aadagtay waxaad samaysaa odaygii dhalay baan wada xaajoonaynaa odaygii hadda ma soo garaacay noo garaac bala duucaana ka dheefay rusheeda odaga samaadka isagaa damaale abo kala kaas waxa sheegi mahayay ka hooyo meel ka sameeyo lagu afka mustaagiyo wallahi billahi leo tanani hawtar maayla maanta waa la yeeray maxaa ku guuleysay imtixaankii baa baastay macalinka lagu bedel rabaa salaamu calaykum waalaikum salaam inankaagu inuu wax ku guulaystay iska daaya 6 bilood muu soo xaaday ma wiilkayga bil iska daaya inuu kadinka soo istaago lama ma wiilka maalin walba soo jarmaado subax walba soo kaco isoo waco yidhahda lacagta ii soo gudbiya ilkaan sii raaciyaa mana yidhaahda iskuulkii baa lacag loo ka soo qoray dekadii garaac iyo waddadii ceeldaahir iyo lacag lagu soo qoray soo dir dee mala kalluumaysatuu noqday waxbarasho maa soo dirinaysa iskuulka waa naxariisi tabarucaadka u daran masaajidada dhisayo amiga xubkaan dhisayo maxaa ka jira arrintaas macalinku sheegay aniga ogtahay inaan subax kasta guriga ka soo kaco weliga guriga aan seexan nin seexda iyo aniga nina miyi 6 bilood iskuulka miyaad soo dhex istaagto miyaan ku arkaano xagee wax ka xirayiin marka maxaa qaldan weydii su-aasha ii jawaab kule macalinka u jawaab ya 6 bilood miyaan ku arko iskuulka ma soo dhex istaag runta iska jeeg runta war waxba ha u jawaabine wiilku la wax uu bartaaye lacagta nooga baxday waxaan baati hadda lacagteena hadday god ku daadanaysay ka waran soo inaa wax salama macalinkii waa kale macallin ba maaha kan sida ay dhaafsan tahay macallin ba maaha kan may macalinkii weeye ninkaan yahay aflagaadeynina ninkan bilna kama hayno idinku wax idiin bartaa ninkan aad arkaysid مشقطة ورمات مين عم بحن ماشي يا مين حكى خدن أنت السوق ما صحيح أنا حكى صوي أنا اليوم أنا أكسب بعد كل حكي هذه وراعية ما تركوا وراعية وصوح البوادية إيش حكي هذه الشيء كان ما اللهم مفيش إنسان سوق كذا جديد ما يصير على ما هو البوس رانا أنا كان ما أنتوا يقصدوا هاي هيا ويل كان يسكول بورتا ومن كان عندها فرصة سنة روح عرض الوحوي حافظها يا كبط صاحبان هاي ما كبط على الديران نسوي وكلا على الديران كبط اللي ما لعبتين ليه ماشي كتير أبى بدل على دقيش أبى رنت أنت إسكشفتي بغاك عنك يا بغاك عنك اسكول يا الأمر عشان محمي يا لا ما كسر بحكي هذا واعر سوء عضالي حبيبي هذا صار أنا إسكال كوري نكان مسؤوليتي سي أنا لوي وهولك أكون مشغولي ما قرأت لكن هذا كتب إن شاء الله واقرت سما واقرت واقرت أدوك
waxaad noqotay ardaygii ugu wanaagsanaa intii waxbarashada la dhiganayay waalidiintaadi waa kula socdaa waalidiintaadi waa kula socdaa maasha allah reerku waa naga qurxoon yihiin ayaga iyo waalidiinta wiilkooda xataa waa naga qurxoon waa waxbarashada wax kale maaha waa waxbarashada dhibaatada ay leedahay ardada aan laga warqabin iyo carruurta iskoolka aadayo waa la kontaroolay waxaa kamid ninkaan dhalinyarada ay kala soo noqday wiilkayguna u jeeda maasha allah waan ilaaliyaa waan la socdaa imtixaamaadkiisa cashiradiisa marka waxaan leeyahay adeertayaal waxaa samaysaan idinkuna sidaasoo kale wiilkiina uga warqaba insha allah macallin waxa weeye wax damba macallin doomaas annaga xilkeeda gudanayna maanta laga bilaabo haddii ay mog ka warhaynta carruurtu waa qayb ka mid a nolosha dhalinyarada ama markay wax baranayaan maaha in lagu idhaahdo iskuulka taga laakiin waa inaad ka warhaysa marxalad walba galaas walba iyo waxbarashadiisu maaqaamka ay taagan tahay labadaa nin waa isku galaas laakiin way kala marxalad saraysa carruurta yarar baa la fadhiisiinaya waxaan ku leeyahay adigoo wax baran karaa wakiil baarlamaan iyo wasiir qaran u noqon karaa hawajali naftaadoo ha ka harin waxbarashada